Xamza waa wiil dhalinyaro ah oo Muslim ah kana soo jeeda Carabta waxa uuna wax ku baranayay dalka Ingiriiska. Waxa dalka Ingiriiska ku soo dhaweeyay qoys gaalo ah oo dalkaasi u dhashay kuwa oo ka kooban aabe iyo hooyo iyo gabar yar oo 6 jir ah oo ayaga dhaleen. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa ay dooneen in ay banaanka aadaan aabaha iyo hooyada. Waxay u yeereen Xamza in uu guriga uu degan yahay ka soo guuro gurigoodana u soo wareegsado si uu ula joogo gabadhooda yar markasta oo ay banaanka aadayaan. Waa uu ka aqbalay Xamza waxa uuna u soo wareegsaday gurigooda kadib markii ay baxeen lamaanihii gabadhoodii yareed ayaa gashay jikada waxa ayna jabisay bakeeri. Xamza ayaa maqlay oohinteeda iyada oo leh hooyaday way ciqaabi doontaa. Xamza ayaa ku dhahay haddii ay hooyo ku dhahdo yaa jabiyay bakeerigan waxaad ku dhahdaa waxaa jabiyay Xamza. Hooyadii markii guriga ay ku soo laabatay waxay aragtay bakeeri jaban waxa ayna weydiisay gabadheedii yareed waxa ayna ku dhahday wixii Xamza uu ku dhahay. Galabkii markii la gaaray gabadhii ooynaysa ayaa u tagtay Xamza waxa ayna ku dhahday aniga waan awoodi waayay in aan hurdo sababtoo ah waxa aan been u sheegay hooyaday waxaana u sheegayaa xaqiiqda sida ay tahay. Waxa ayna u sheegtay gabadhii hooyadeed xaqiiqda dhabta ah. Hooyadii waa ay baxday waxa ayna u tagtay Xamza si ay u xaqiijiso in ay run tahay waxa ay gabadheeda sheegaydo. Goortii uu Xamza u xaqiijiyay in hadalka gabadha run yahay ayaa waxa ay hooyadii ku dhahday Xamza gabadheeda laga soo bilaabo maalintii ay dhalatay ilaa hadda waxa aan baraynay runta. Tanina waa markii ugu horeysay oo ay been sheegto mana aqaano sababta waxa ay u sameynayso sidaani adigoo ah qof Muslim ah. Anigoo og in nabiga islaamka lagu naanaysi jiray Saadiqul Amiin kii runlowga ahaa oo amaanada badnaa. waxaana akhrinay xadiis nabigeena ka sugnaaday waxa uuna dhahay nabigeena عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة oo micnaheedu yahay ku dadaala runta waxay kugu hanuunisaa wanaagana wuxuu kugu hanuuniyaa jannada. Waxaan ku siiyay 24 saac waa in aan 24 saac gudahooda ugu guurto gurigeena ma rabo aniga gabadhayda in ay barato dhaqamada xunxun sida beenta oo kale. Waxa uu ka baxay Xamza guriga asagoo aad u murugaysan sababtoo ah waxa uu fool xumeeyay suurada islaamka isla markii wuxuu alla ka ballan qaaday in uu dambe been sheegi doonin xaalad kasta iyo sabab kasta oo ay ahaato. Kadib markii uu soo dhamaatay waxbarashadiisa waxa uu dib ugu laabtay wadankiisii. Maalin maalmaha ka mid ah asaga oo ka soo laabtay masjidka kuna sii jeeda xaafadiisa salaadii subax kadib ayaa waxa si kadis ah ku arkay nin ganacsado ah oo gaarigiisa ku dhuftay imaamka masjidka kana dhaqaajiyay goobta. Mana oga ninka ganacsadaha ah in uu arkayo Xamza imaamkii ayuu meeshii ka qaaday waxa uu qaaday isbitaal kadibna waxa uu arintii ogeysiyay booliska. Goortii ay boolisku soo qabteen ninka waxa uu inkiray in uu asagu ku dhuftay gaarigiisa imaamka masjidka. kadibna waxa uu dil uga hanjabay Xamza hadduu maxkamadda horteeda hadaladiisa ku bedeli waayo. Waxa uu sheegay haddii uu arintani qof kale dusha ka saaro oo uu been sheego in uu sii doono dhaqaalo aad u badan. Xamza uma joojin hanjabaadiisa mana daneynin dhaqaalaha uu ballan qaaday. Waxa uu qiray inuu ninkan yahay ninka imaamka gaariga ku dhuftay waxaana hadalkiisii taageeray oo xoojiyay imaamkii kadib markii uu soo caafimaaday. waxa uuna sheegay imaamkii in uu tuhmayo ninkani in uu isku dayay in uu dilo kadib markii uu ka dalbaday imaamka gabadhiisa in uu guursado balse imaamka uu ka diiday arinka. Farxadda Xamza ayaa noqotay mid aan la soo koobi karin kadib markii uu guul ka gaaray arintani imtixaanka ku ahayd taa uu ku guuleystay kadib markii uu ku adkaystay runta asaga oo dareemay in uu Allah adeecay una sharfay islaamka ka oo horay u fool xumeeyay. وولكن أبشر باري وينيسو ترجمي قصداني إذن لن سعسينيي فضلا هدي آد نلسو قارتي قبقبدا مقالك لاك إنو صار سينا شير قري